kulankan aqoon isweydaarsiga ahaa looga hadlayay kaalinta bulshada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan xasilinta dalka oo uu soo qaban qaabiyay xafiiska dhinaca arrimaha bulshada ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka oo ay ka soo qayb galeen ururada bulshada rayidka, xildhibaano, aqoon-yahano, culimo-diin, odayaasha dhaqanka iyo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya, la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada ee xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo marti sharaf kale. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa looga dooday kaalinta bulshada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan xasilinta dalka iyo sida loo nabadayn lahaa guud ahaan dalka Soomaaliya iyo doorka bulshada ay ka qaadan karaan dib u xoreynta dalka. Qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo dadkii ka soo qayb galay ayaa ka waramay muhiimadda kulankan uu leeyahay bulshada iyo kaalinta bulshada ay ka qaadan karaan xasilinta dalka. aayadihii oo loo akhriyo qaaliga ruuxda badan hadda loo akhriyo codka macaan ayaaba kow ah meel kale la aadi maayo. ilaahay subxaanahu watacaala intaan joognay maka la joogay oo weli aan dowlad la yegleelin oo aan dowladda madiina iyo hijrada la aadin oo dacwada ay bilow tahay islaamku sidiisaba waxyaabaha asaasiyaadka u yimid waxaa ugu horeeya la yidhaahdaa waa 4 shay. 4taasa risalada islaamku diiradda saarta. midda koowaad waxa waaye dadka in la baro allihii abuuray khaaliqooda in la baro inuu yahay koonkaana aan bilaash loo abuurin ee khaaliq abuuray uu jiro, bilaash aan loo abuurin ee loogu talagalay dad la keeno inay maamulaan oo alla maaragtay ay ku caabudaan. muhiimaddaas isla markaasna diintii iyo tawxiidkii iyo iimaaniyaadkii iyo ruuxaaniyaadkii iyo qur'aankii la fidiyo oo ah risaalada ilaahay xaggiisa nooga timid oo koonkan sacaadada adduunya ka abuuraysay tan aakhiro loogu gudbaayo jannadii ay ka dambayso iyo ilaahay raalaashadiisa iyo aragtidiisa qiimaha badan oo aakhiro marka tagan arki doono jalla jalaal. taasaa kow. waxaa labaysa oo ku xigta in bani aadamka hoos laga soo dhiso oo la baro inay yihiin bani aadam karaamo leh. walaqad karramnaa bani aadam. mujtamaca dhulka in laga qaado khawaarijtoo laga xoreeyo waa hadaf asaasiya laakiin kuma filna مهم كل جسمه فعلا. وحال الرباء وحال إلى العرب وحال إلى التخلية ثم التحلية. يعني هذه مكان تشات إلى بشيء كتبان بوسر نتكلم كوجرة نتكوجرة تدا بيحسدوا كاس مكان بيحسد بعد كاس كلا شغلتها. أنا شهادتي وعن سكب حنا هذا قميص أو خوارج دوائر سكب حنا وحال حنا يا وعيدل يا قرية يا قفر وقلي كلام وإلا بيعني مكاس يقول رجمل دلالة قضاء إلهي رسولك سنة أمريه وإيد وعبادة إلهي نقول بعد سنة ودلالة إن أن تلقي ومدحونا الرجال نوقي إن السماية صندوق هرمرينتا مجتمع صومالي قال هند قاندة أي خوارج هذا قال صندوق أصحاب السماية ميزانية يرلي وحنقش مكرنا $1 بليون ولي التفاصيل شقاق كله وشوية يعني إذا قرار أيام هاي ونسوق بنا وعنسوق بنا يا حفيظ وش خلاص taasaan uga fogaana marka bulshada rayidka ma wada dhexayno 90% waa fiican yihiin laakiin bulshada rayidka waxay ku ficneed waxay ahayd tabartana intaan aynan tallaabsanayn. haddana ragga waxaan u badin jiray dhinaca siyaasadda nimankaan iga soo horjeedo hadda cirada leh ayaga madaxweyneyaal iyo guddoomiye ila shiraaya annaga islaam masaakiin aynu marka islaantaas maanta qoryaha laga dhacay iyo tii suuqa soo mar weyso iyo tii agoon aan iskuulka ahayd. dowladda waxaa horyaala ajandooyinkaas ajando ka mida ayuu ahaa ajandihii maantay kaasoo ahaa sidee loo xasilinayaa waddanka markii maaragtay amnigiisa la sugo kadib muxuuse waddanku u baahan yahay. sida aan ognahay xasilinta dib u xoreynta iyo horumarinta intaba waxay ahayd dikreeto uu ku dhawaaqay madaxweynaheena jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegay taasoo ajanda cas isaga iyo dowladda dan qaran ay intaba ay isku raaceen ajandooyin cadcadna loo sameeyay waddanka in dib u xoreyn lagu sameeyo. waddanka markii la xoreeyana waxyaalaha tansiilaadka ah oo ay u baahan yihiin shacabka meeshaas degan in la gaarsiiyo oo ay ka mid tahay caafimaadka la gaarsiiyo, cuntada la gaarsiiyo, waxbarashada la gaarsiiyo, waxyaalaha basic needka oo human right-ka bini'aadamka u baahan yahay asaasiga dhan in la gaarsiiyo. Haweenka Soomaaliyeed door weyn ayay ku leeyihiin xasilinta runtiina ayaga ka bilaabataa ayagana ku dhamaataa xasiliin baa hadday tahay
sababtoo ayaga uu dhaxaadka ah ayaga kabar haayo xaafadii kabar haayo maxay yiraahdaan ilmahooda meesha ku sugan yihiin dariskoodii qaraabadii reerkii wax kasta ayaga kabar haayo saas aawadeed waa la dhabarti oo bulshada waxay u qayb qaadan kartaa sugidda amniga dalka horta bulshada Soomaaliyeed bulsho aad waxa waaye gaar ahaan gobolka Banaadir waaye hadda waxa barbaleen ugu badan oo ku jiro laga hadlayo dad aad u dhibaataysan waaye aad u rabo nabadgelyo iyo xasilooni iyo dowladnimo inay helaan waxay nabadda uga qayb qaadan karaan marka ugu horeyso kow inay helaan kalsooni qofka bulshada Soomaaliyeed oo xamil joogo markuu arko dhibaato asagoo la jeclaysan haddana wuxuu ka baqayaa inuu sheego sababta keenaysa waxa waaye meesha uu sheegayo is'aamin karin wuxuu isleeyahay haddii aad sheegto adaa lagu soo sheegaa la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada ee xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Caliima Cali Culusow ayaa ka hadashay kulankan aqoon isweydaarsiga iyo ahmiyadda uu leeyahay bulshada insha Allah waa rajaynaynaa waxaan maraynaa boqol iyo wax la jira inay joogaan boqol iyo wax la jira markay tahayna fikrad soo baxay ra'yiga soo baxay ra'yigiina waa noo muhiim talooyinkiina waa noo muhiim waan ku wada shaqayn doonaa gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxtar u leh dadka iyo dalka Soomaaliyeed waxaana ka mid ahaa qodobada laga soo saaray in laga qayb qaato howlaha dib u heshiisiinta dalka iyo isdhexgalka bulshada in sare loo qaado adeegyada aasaasiga ah bulshada iyo in la geeyo goobaha laga xoreeyo argagixisada adeegyada arrimaha bulshada Muuse Cismaan Abtow warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Muqdisho